السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلامة دمان Soomaaliwiin. waxaad jeclaystay dadka dhan badanaaba hadda sahashadeen inaa wax yar ka yidhaahdo sheyga la yidhaahdo beenta. taa ka hore hordhac ayaa rabaa inaan ka hormariyo nin hermiya hadda ka horo wuxuu u soo martiyey cid oo adiga hermiga xilliga hore waa ogeedo marka qofka ee socoto tuulada u horeyso qofka ee ugu imaato ee soo martine على كل حال عدو سو مرتيي عدي مركو سو مرتيي ولا مرتي صوري ماشي habeen ka jiiftay dhalinyaro wato buraashada oo guriga meel kamid ah surtay oo suba ku jiro doorada marka la gaaro gabadhii guriga joogtay wuxuu ku yiray bal dhaladan ii soo qabo ladii soo qabto subagii weeyse qaad ku bilaabo sixir jooji ma dhacay idkan subaga la yiraahdo waa la isticmaalaa lagu weeyse qaato markaas wuxuu yiri aniga meesha ka imaado meel barwaaqo soorano subaga loogu weeyse qaataa marka niyadii waxay iska tiri Allah ilaahay ninka raadinaysa waa kana xogaar damac iska gal adiga meesha xogaar shukaansi ka bilowdo maalin laba maalin saddex maalin haduu joogo gabadhii shukaamiyo la baxsayo maraysi socdaan oo mehersayo meel maalin markuu wado maalin kada wada oo waday oo maalinta saddexaad ee meel degeen meesha markay degeen oo maalmo joogeen oo haddana wixii tiri warniyo nin barwaaqo iyo suba ku weys qaatay iyo meel barwaaqo ka imaaday hade maxay tahay meeshan ay dejis asxiri soo dhawow aniga xilli xoolo dhaladaas subaga u jeedid akale marka qof aad u aqli badan ee diidane waxay dareentay gabarnimadeedii waysay familkeedu taajir ka soo tagtay gabadha guriga xaafadda ugu shidneeda ahayd waxyaabo badan inay meesha ku waysay dareentay dhaxday xiratay gurigeeda dhaqatay taa Soomaalida waxay dhahaan naag been lagu soo xirageliyaa runa lagu dhaqaa taa ma aha si kala u dhiga maanta hooyo waxay ku dhahday bal sokor soo gat ama sokor soo iibi waxa qaadatay lacagtii waa baxdo meel halka ka soo jireeso ma tahay hor dukaanku xinayaad marka ilaahay wuxuu na siiyay maskax iyo aqli fidradeena oo saliimkaana oo ilaahay nagu beeray nama farayso ina been sheegno habeenkii dhan waa walaaci hurdo fiican hurdimeesid yani aqligii maskaxdii aad doodayaan qalbigii maskaxda waxay dhahayaan yani been maxaa ugu sheegtay maxaa ka noo yani dood dhaxmareys darteed habeenkii hurdo fiican hurdimees si kala hada u dhigo waa baxdo dukaanku ugu horeeya tagto waa xirnaa koo kala tagtay wuu xirnaa kii saddexaad tagtay wuu xirnaa waa soo laabato hooyo dukaanku xirnaa waxa laga yaabaa in habeenkaas hurdo fiican isku hurdido wali waxba ku qaban taa anigoo ka duuleen ilaahay wuxuu yiri quraankiisa ku yiri yaa ayyuhal ladina aamanu lima taquluna ma la taf'alun ilaahay wuxuu yiri dadyo ha ballan qaadinina waxa ay sameeyeen marka hadda waxa u jeedaa in beent aad loo sahalsaday marka sheyga beenta la yiraahdo wax fiican ma rasuulkeena sallallahu wasallam alayhi wuxuu yiri saddexda calaamadood oo munaafiqa ugu weyn waa ninka hadalkiisa been noqdo ballan oo galana buriyo oo ballanka oofin iyo wax loo dhiibo qiyaamo ilaahayna quraankiisa ku sheegay anagana waxa leenahay ilaahay naga najiixo aqligeennana ha ka saaro sida hadda u jeedaba dadkan beenta sahashadeen been wax qofka sheegaysa qof la qadarinaya tahay run hadaba sheegtay qof ku aamineen marka taa anoo ka duulaya waxa leeyahay war Soomaaliyay ama islaamo been wax fiican ma been waa tan guriga bulbuliso waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.